horta dadku qoloba dhinac buu qaaday صح way siyaasiyeen asxaabtoodu waxay leeyihiin macaan markaad naga tagtay wadna soo hurgufaysaa ها كله يعني heestan nimcaan oo sida imka noo sheegtay waa kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaana waa channelka Fandor Media oo aalab idin sugi barnaamij xiisa la warar iyo bixin maanta barnaamijkan xog saabsan yahay fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac ayaa ka hadlay heestii uu dhawaan soo saaray heestan ayaa muran badan dhalisay oo social media la isla xmariyay iyadoo loo fasirtay noocyo kala gedisan qof walba fikirkiisa oo fasirtay balse Nimcaan Hilaac ayaa ka hadlay oo xaqiiqda dhabta ah sheegay waxa uu sheegay heesta inuusan u ladan lahayn siyaasad balse dadka qaar ay u dhigeen inay loola dan leeyahay siyaasad oo lagu eedeynaya Soomaaliland inuu caayay balse arrinta dhabta aysan ahayn sidaas ay tahay loo dhiibay asiga oo jacayl ah qisana ku timid ereyada abwaanka sameeyeen waa abwaan Maxamed Kaleer oo ku soo burco laxaga sidoo kale waa Khalid Kaamil heestan ayuu sheegay inaysan wax siyaasada ku lug lahayn video uu ka hadlay iyo muuqaalba nala daawada balse intaan ugu gudagalin barnaamijkeena fadlan walaal macaan markii ku horeysatay channelkeena soo boqoto subscribe saar gambalka furo si ay kugu soo dhacaan waxyaalahan soo gelin markasta haddaad horno wali joogtana muuqaalkan like saar una sii share garay asxaabtaada si ay u daawadaan waxay ku gaadhay 300 oo keebad marka ma sha Allah heestaas like qeyri inta la soo jeedi kamarada hore niyo horta heestaasi waxaan soo saari lahaa waqti hore laakiin waxa way qorneedana xilligan soo saaro صح jijiga birigan joogan reena soo saaro صح laakiin wala sugaysay maalinteeda niyo maalinteedii wada maanta noqotay ha because of wax kasta waxa la yiri marka la soo saarayo waqtigeeda iyo situationkeeda ayaa la sugaa aad iyo aad waan aragnay jacayl baa ku qabanaya heesta xilligii jacaylku hay ma soo qaadi sidii xilli uuna jacaylku haynin baad soo qaadaysaa aad iyo aad marka ma sha Allah hadda dadku qoloba dhinac buu qaaday صح way siyaasiyeen asxaabtoodu waxay leeyihiin macaan markaad naga tagtay wadna soo hurgufaysaa ها كله يعني heestan nimcaan oo sida imka noo sheegtay waa hees mar hore la sameeyay Soomaa مس mar hore la sameeyay heestan jijiga markaan joogan reena soo saaro ay way suurta gal weeyday okay agis hadda dad badan baa soo qabsaday heesta waxay leeyihiin Soomaaliland baa lagu afuufayaa dad baa maaragtay xitaa aniga la sida su'aalo la soo weydiiyay maadaama aan in badan wada joognay intuu dambeysay imka waxa la yiri war heestan niyo maxaa looga jeedaa bal dadka aad u qarxi imka 200% dhageystado niyo horta heestan dhinac waxa uu ula kacay waa xagga siyaasadda la talax tagay صح laakiin iyo heestan waa dawo kan socodkay dawo tahay jacaylada dadka kala maqan okay iska bulada way kasoo daran tahay iska dulqaatan leeniyo wallahi ما شاء الله امين حس اد مع يعني dad badan oo asxaabteeda kamidana way soo wada direen aniga u diraa la soo diray adana Snapchat ahaan marka miraheeda aad iyo aad u fiican yahay macno aad iyo aad laakiin iyo Soomaalida waxa noqotay wada xasrad ereyga tirada meel kale loo kacaya ya Soomaali waa mirgiya la yiri meeshii loo jeediyay aad iyo aad iska qalad qaladku iska bixiyay dulqaadkeeda aan leenahay wixii jiititaanska ya inta arabna ka dhaqaaqo like adduunka sidiisaba marka dhimatid kafana ka raacaysa so intaas wanaaga ayaa la iska badiyaa dadka aad iyo aad waxay ku hadlayaan iska hadlaan nacamku iska badiyay because waxa la yiri more aad horumar gaadid more like cadawgaagu bataanaya aad iyo aad wallahi aad iyo hadda waxaad arkaysaa sheekh caasidiyo ragii hadalka isku dabrigeeyay ayaa joogay sheekh caasidiyo jira fanaan caasidiyo saaxiib caasidiyo sheekh ma xaasidan ila warkane wallahi Instagram ka wareysta ani Instagram ka wareysta waa soo geliya weesha jabba yaale wallahi jabba yaale wallahi sheekhu marayka waxaad ugu imanaysaa soo jeedo dadku is xaasidiyo sheekh xaasidiyo fanaan xaasidiyo saaxiib xaasidiyo doorta ma fanka aragnayo shaqooyinka kale wax saas agisa nimankaasi aan diinta ugu daafaynin xaasidiyo war arin ma ayaan dawladda no like xaasidnimada waxay ku timaadaa horumar uu qof kale sameeyay ay ku timaadaa imka aniga horumar baan gaaray adigii horumar maad gaaray marka challenge ayaa meesha imanaya qofkii saaxiibku kuma farxayo wuxuu haystay ee challenge uu isleeyahay qofkan dhaaf qofkan taas keenaysa markaa yaa marka taas qofka keenaysa inuu qof kale xaasido yaa nimcan maniyo wasitay asxaabtan iyo baasha waxa leeyahay qabiileynina heesaha siyaasadeynina maniyo horta hadda waxa leeyahay la tuujada kuude wala tu farabadan tahay kuude moodo xuma ما شاء الله وجيرنا أنا أقول كأك تاجن بقى صونكن نيجي فيصلي صوك علنك وحنا نكاس
kuwa jirida waan isku celinayna kabadhe صح laakiin sida wadaafa ma saaxiib wadaafa ma ya wadaafa ma aniyo dadku mooda xumo dadku wanaagsan way badan yihiin waxaan ku leeyahay cadowgaaga u nolow aad iyo aad waxa way saaxiib qadka ka sii bixi doona aad bani salaam bayna aad iyo aad ayaay salaantana waa in dib loo dhigtaa